waxaan aad ugu mahadnaqaynaa madaxdii soo sharaftay oo waqtigii aan internshipka ka shaqeynayna si weyn nooga shaqeysay oo hormuud ku hayeen DG-ga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed iyo wasaaradaha kale sida shaqadoon oo noo jooga Axmed bara saamka maayarka degmada Boorama iyo madaxda kala duwan ee jaamacadda Amuud iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha ardayda ee xafiiskayga barsadiriye horta halkan waxa maanta la isku yimid waxa weeyaan saddex ujeedo waa in la soo bandhigo awoodda iyo xirfadaha ay leeyihiin ardaydu iyo iskuulkooda in la iska xidho kombaniyada iyo waxay sameeyeen ardaydu iyo in laga mahadnaqo internshipkii ay galeen Soomaaliland ku tageen gaar ahaan caasimadda waxayna ka sameeyeen baahiyaha ku soo arkeen wasaaradaha iyo hay'adaha inkastoo ay wax badan sameeyaan oo ay hadda bilaabtay inay dhoofiyaan meelaha Soomaaliya joogta sida Imaaraadka Afrikada bari ay u iibgeeyaan software-da qaarkood way soo bandhigi doonaan haddii la haylaan si uu gudoomiyaha jaamacadda Amuud loogu furo Maga Edwin Omondio Kech, Dean Faculty of ICT, Jaamacadda Amuud. Welcome all the honorable guests. It is a real big honor to host you today. Professor Suleiman, President Amuud University, who will introduce all the distinguished guests. I will not mention them now, but he will mention them. I will just mention briefly what this event is about. IT Open Day is an event which has three main themes. Number one objective is we intend to show the business world, the government ministries, the line ministries of the government, together with the NGO world, what our products are capable of, what our graduates are capable of. For that reason, we will have some presentations which we would like you to see, so that you see whether the products that our students have. In mahadidin celino saaxiibada Amuud University atihiin waa arin sanad walba ay qabsadaan Amuud bariga waxaan u bixinay tamhaldagayagu waxa ku dhagayagu waxa weeye wad documentkeedan badan aad ku arkaysaa Amuud University Vehicle for Peace and Development waa baabu gaadiidkii ama baabuurkii u raacayay nabadda iyo horumarka la socdeen basically waa labadaas aan u joogna of course horumarka markaynu leenahay fi aakhiraba horumarkeenu sheegayna arka aad iyo aad ayaan idinka macalinaa taad noo timaadeen waxaan ugu hambalyeeyaa kulliyaddan ICT-da ama IT-da oo runtii dadaal dheeraada muujisay oo eventkan sanad walba qabsata halka aad soo gaarsiiseen hormoodka iyo macallimiinta iyo ardayduba waa wax wada jira ardayda waxaan idhaahdaa way nala dhisaan jaamacadda sabir bay nagula dhisaan oo kolba wixii dhiman ahla wasana wax walba fiican bay leedahdaan oo sabirkaasi qayb ka mid yahay waa kan ilaahayna ku amaanay kitaabka quraanka oo wixii dhiman waa dhiman yahay wixii aan ka qaban karun baynu ka qaban sabir bay nagula dhisaan iyo wixii kale u baahan ugu hore waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo maamulka jaamacadda martiqaadka ay nagu martiqaadeen barnaamijka bandhigga ardayda inta narkeena runtii wax badan oo qurux badan baa dhalinyarta ay soo bandhigeen si gaara bandhig wuxuu ku saabsanaa technology-gana oo maanta sidaan ognahay guud ahaan industrieska kala duwan maanta isaga maaragtay hormood ah kobaca dhaqaale ee dunidu sidoo kale horeysaana waa sida ay teknolojiyadda ay ugu kala horeeyaan technology-gu wuxuu u baahan yahay sida haddaba aad aragtaan research iyo development xataa shirkadaha waxay isku dhaafeen waxa weeye shirkad kastaaba inta ay kolba maalgeliso departmentkeeda research and development waayo suuqa waa la isku tartamaya waa la isdhaafaya awootihiin oo shirkadaha caalamka ka jira maanta maaragtay aan dee waxaan jecelahay horta inaan u mahadnaqo jaamacadda Amuud mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ardaydii soo bandhigaysay fikradaha technology-ga ee quruxda badnaa runtii naga iyo jaamacadda Amuud iskaba cusbin kulli markii ugu horeysay kulana ma aha waa sanadkii afraad
ee aanu halkan wada joogno ujeeddadaanu mar kasta u kulanaana waxa weeyaan in la xoojiyo lana horumariyo dhalinyarada dhigata jaamacadda Camuud iyadoo looga faa'iideynayo hadba fursadaha jira ee ay tahay dhalinyaradu inay ka faa'iideystaan barnaamijka ugu mudan ee annaga iyo jaamacadda Camuud aanu si dhow uga wada shaqeynaa barnaamijka internship program in ardaydu ay helaan goobo ay ku tababartaan oo shaqo carbir ay ku qaataan hadba wixii ay soo bartaan ay tagaan oo iyagana laftigooda fursad u siisa inay network iyo ku xirmaan bulsho fahmaana goobaha shaqada iyo environment-ka waxbarashada siday u kala duwan yihiin ardaygu markuu senior-ka yahayna inuu fursad u helo inuu tababar iyo internship galo sanadadii hore oo dhan waanu ka wada shaqeynay sanadkana waanu ka wada shaqeynay insha Allah qorshuuna wuxuu yahay in 400 arday oo kale internship opportunity ay ka faa'iideystaan hadii Allah awoodeliyo baa mahadle isugu keenay xafladan aadka quruxda badan leh ay inoo soo diyaariyeen kulliyadda tiknoolajiyadda iyo ICT-ga ee jaamacadda Camuud anoo ka socdo jaamacadda Burco runtii sharaf weyn bay noo tahay run ahaantiina xiriir ballaaran ayaa naga dhaxeeya jaamacadda Camuud si awtiin jaamacadda Camuud waa hooyada jaamacadaha dalka sidaa daraadeed wax badan baanu kala faa'iideysanaa wax badan baanu soo doonanaa marka aad baan ugu faraxsanahay xiriirka quruxda badan ee naga dhaxeeya oo waliba runtii ay si gaar ah u hogaamiyaan kulliyadda IT-ga iyo engineer Edwin oo marar badan noo yimaada oo ardayda keena gobolka Togdheer aqoon isweydaarsi ballaaran dhex maro runtiina productiyo badan soo saara waxaan xasuustaa markii ugu dambeysay noo yimaadeen barigii hore waxaan soo bandhigi jirnay sidaan oo kale imika ardaydu noogu soo bandhigeen wax qabadkooda laakiin waxyaabo dalkana dan u ah ayaan doorkii u dambeeyay ku bedelay marka debate baan yeelanaa aanu ka doodayno wadanka mushkiladaha hor yaala. And really I can say Mr. Edwin and his team has proved that they can become a hub for technology and development in this country Somaliland. horta hadal badan aan halkan iguma hadhino de barsoorkii baa hadlay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd mahadnaqa iyo waxa maanta la qabtay in la soo bandhigo oo loo mahadnaqo cidii wax kula qabatay in loo mahadnaqo runtii gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda hay'adda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay halkan u yimaadeen in ay maanta inala arkaan oo gaar ahaan jaamacadda Camuud oo ah midhaha aynu ku faano ay la arkaan department-kan IT-gu waxa ay soo bandhigeen in la idinla arko idinkuna cidii wax idinla qabatay aad uga mahadnaqdaan runtii waxaan u arkaa waa albaab u bannaan dadka mustaqbalka hiigsanaya wanaagsan waxaan isleeyahay maanta halka aynu marayno tiknoolajiyada waa lagu kala tegey barsoorku wuxuu sheegaya in kulay hiigsigiina fog laakiin marka caalamka ama inta aan jaamacadda ku dhex jirin markay bannaanka ka qiimeynayaan jaamacadda Camuud waa meelaha la hiigsanayo ee la doonayo in lagu daydo runtii marka labaad waxaan u mahadnaqayaa jaamacaddan soo saartay midhahan iminka maanta aynu hor joogno ee xirfadan ay soo bandhigayso baray waan u mahadnaqayaa ardayda wax ka baratay jaamacadda ama jaamacaddan guud ahaanba iyo inta maanta halka fadhiday soo bandhigaysana waan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay waa guulaa gaadheen hambalyo ilaahayna hore ha idinku wado waxbarashadu dhammaad ma leh waxbarashadu bilow bay leedahay laakiin ma leh dhammaad waa wax fara badan marka inaad horu sii wadataan oo aad maqaamo wanaagsan ka gaadhaan ilaahay baan idinka baraya wax ilaahay la baryo oo ka wanaagsani ma jiro ilaahay wixii aad weydiisatay wanaaga oo aad ka heshaan waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddaad ka weydana meel kale kuugu dhigaye lama qawado oo qawadi mayno jaamacaddu waa run waa jaamacadda horyaalka maanta waa geeska horta hambalyo macnaheedu wax fiican oo wanaagsan oo mashaariica ayaad soo bandhigteen ilaahayna waa wax lagu mahadnaqaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan idinku mahadnaqo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu haddaan tii kale ku soo noqdo arrinta ah internship policy ama siyaasadda carbinta shaqaalaha qofku markuu wax soo barto la carbinayo si fiican baanu annaga shaqadoon iyo hafayooka iyaga soo amuga shaqaynay annagu markaa ilaahaydankii waxaanu ku dadaalaynaa inaanu qayb lixaad la ka qaadanno inaanu hay'adaha dawladda iyo hay'adaha kaleba
ku qancino in qofka wax soo bartay muddo la joogo ma garanaysaa institutionka taana waajibka saaran nuura runtii aad baan ugu mahadnaqayaa samir dulqaad iyo muxuu ahaa inaad wixii barato ayaa muhiima midda labaad waxa laga maarmaana ardaydiinan baratay ICT-gu haddaydan public relation lahayn hadda goor waxa la yiraahdaa public relationka qofka leh iyo qofka aqoonta loo kala duwan yihiin bal daw fiirsada waxa soo dhami waa horumarka nabadda aqoonta ay u baahan tahay in la dhiirigeliyo mar labaad mar saddexaad hambaliyo ka haya shaqaale hal laba shay baan ka hadlayaa shay waxa weeye tiknoolajiyada maxaanu doonaynaa inaan ka qaadano oo adduunkuna maanta yahay adduun ay dabada ka riixayso oo aasaas iyadoo dhaxaad horumarkiisa ay u noqonayso in la isticmaalo farsamooyinka tiknoolajiyada casriga ah ee lagu shaqeeyo imika hay'adda shaqaaluhu waxa sheegay wakiilkii ka socday jaamacadda Burco waa in dawladdu isticmaashaa buu yiri tiknoolajiyada oo wax badan suurto gelinaya hay'adda shaqaalaha waxa uu qorshaysan oo koow noqonaysa hay'addii ugu horeysay dawladda isticmaasha inaanu habka maareynta maamulka cudurda shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ha joogo gobol kasta ha joogo tuulo kasta ha jooge inuu noqdo inaanu isticmaalo HR Human Resource Management System isu keeno koobaya systemkaasi wuxuu suurto gelinayaa inaanu data entry-gi xogtii la geliyo iyo data tracking-ki xogtii in la isticmaalo oo la baaro iyo data management-ki in datadii la maamulo la maareeyaa inay u suurto gasho hay'addu dhammaan gobolladeeda oo dhan ay ku samayso system iyadoo serverkeeda isticmaalaysa wada shaqeynaya oo ka mid ah hababkii aad soo bandhigteen sidaana ay noqonayso qofka in laga heli karo qofka shaqaalaha dawladda in la heli karayo profile-kiisii CV-giisii shahaadooyinkiisii performance appraisal-kiisii in uu qofkaasi akhlaaqiyadkiisii xagga shaqada dalacaadiisii anshax marintiisii dhammaan xogtii looga baahnaa qof shaqaalaha inaan xafiiskayga oo fadhiya heli karayo gobolladuna saasoo kale u heli karaan wasaaradahana HR department baan u sameeyay wasaarad kasta iyaguna ay halka ka kantaroolaan taasi waxay keenaysaa inaanu wasaaradahana ku dhiiri galino markaanu systemka hindisno in loo sameeyo inay isticmaalaan cloud computing-ki oo halkan imika laga saaro suulka systemka yar ee aan isticmaalno in la sameeyo in wasaarad kasta yeelato in qofku markuu halka suulka ka saaro wasaaradda hay'adda shaqaaluhu la kala soconayso inta habsanka iyo inta si wanaagsan u timaada waxay noqonaysaa taasina guul weyn oo qaranka u soo hoyatay idinkana waxay idin noqonaysaa dhiirigelin iyo fursad in wasaaradaha oo dhan shaqo IT looga baahdo biidnillah taa waa dhiirigelinaynaa waananu samaynaynaa ayaamaha bilaha soo socda sanadku intaanu dhaamin biidnillah tacaala taasi waa dhiirigelin iyo waxa hay'adda shaqaaluhu ay ku tamaniyayso inay dib u habaynta qaabka shaqaalaheeda qayb ka mid ah waxaan ku darayaa oo sidoo sheegay Maxamed Cilmi teknoolajiyadu way iska IT-du way iska mushkilad badan tahay waxyaalaha dhalinyaradeena iyo qarankeena barragaadiyeen waxa ka mid ah qabyaaladda ma jirto barnaamij kale ama hab kale oo challenge gareyn karaya qabyaaladda ama la tartami karaya oo aynu ku suulino waxaan aaminsanahay haddii aqoonta la isu keeni lahaa oo inta IT loolan lahaa waxa weeye waa reer IT oo istirsan lahaayeen gobol kasta iyo degmo kasta ay joogaan oo inta business management-ki ay istirsan lahaayeen oo ay noqon lahaayeen reer business management oo inta veterinary ay noqon lahaayeen reer veterinary oo xanaanada xoolaha oo inta caafimaadka ay noqon lahaayeen reer caafimaad baanu nahay waxaan aaminsan lahay inaynu qabyaaladda ku yareyn kari lahayn oo ana aqoontan qabyaaladii ka horeysay hagayso inay aqoonta horeyn lahayd taana waxa looga baahan dhalinyaradu inay ka shaqeeyaan siday barnaamijyadan u iba bixinayaan ay u abuurayaan inay farsamooyinkaana iyagu abuuraan oo ay advocate gareeyaan oo isku xidhnaadaan oo WhatsApp-ka iyo Facebook-ka oo isticmaalaan halka waxyaalaha xun looga isticmaalayo taasi waxay keeni doontaa in la istirsado oo aqoontu ay noqoto waxa dalkeena iyo qarankeena haga mansab kastoo la bixinayna aqoonta ay noqoto aasaas taasina waxay idin tahay fursad wanaagsan oo qaali ah waxaan leeyahay biidnillaahi tacaala dhammaanteen waxaynu gacmaha isu qabsanaynaa inuu qarankeenu hore u socdo inay noqoto qarankeenu noqdo mid farsamooyinka casriga ee tiknoolajiyadu ay dabada ka wadaan oo udubdhaxaad u noqdaan si loo yareeyo waxyaalaha xunxun ee ama corruption ka mid yahay ama dib u dhac ka mid yahay ama guuldarro ka mid tahay loona hirgeliyo aasaas wanaagsan oo horumarineed oo dhinac walba aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu